بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لها شرفت لي كسوغان مدشان ككلا سعودة صدح حزب سياسات كلا ARD MRD كوبه بي إسباهاي سيغا BSN وحان كلي هاي كسو دوادا مدشان حزب موديل حرونتان وحرونتيدي وحرونتيني وحرونتيني وحرونين ودلين هاي marka waxa leedahay gacmo furan ku soo dhawaada qarbi furanna ku soo dhawaada caawa waa habeen barakaysan oo ilaahay inoo fudeediyay inaynu isku nimaadno afurwada munaasabadan qiimaha badan ee afurwadareed uu soo qaban qaabiyay isbaahaysiga BSN walaalahay afurwadareedkani wuxuu xambaarsan yahay saddex arrimood buu xambaarsan yahay koow arrinta ugu horeysa waa xoojinta wadajirkeena taariikhda adduunka marka la akhrinayo waxa la sheegaa dadka runtii guuleystay inay yihiin dad si wadajir ah ku wada joogay wadajirka muhiimadda uu leeyahay de waxaaba inoo sheegaya xadiiskiisu banaa ee ahaa mu'miniintu waa sida dhismaha midka kale ayuu xoojiyaa baa la yidhi markaa waxaan leenahay xisbi walba xisbiga kale ayuu xoojinayaa wadajirkeena wadajirka runtii marka laga hadlayo tusaale ahaan waxa la soo qaataa farqiga u dhaxeeya geedka keligii taagan iyo kaynta waxa la yiraahdaa geedka keligii taagan awood kaliyu leeyahay halka kayntu ay ka leedahay saddex awood ay ka leedahay geedka keligii taagan awoodda kaliya uu leeyahay wuxuu ka helaa xididkiisa ayuu ka helaa kayntuna saddex awood bay leedahay waxa la yiraahdaa kow elle conserve l'humidité waxay kaydisa qoyaanka ayay kaydisa laba elle résiste à l'ouragan baa la yiraahdaa waxay iska caabisaa amba ay iska gaashaamaan duufaanka ayaa la yiraahdaa saddex elle contribue à la fertilité du sol oo waxa la yiraahdaa runtii waxay nafaqaysaa dhulka si uu wax uga soo baxo oo wax uga beermaan baa la yiraahdaa marka waxaan leeyahay wadajirkeenu nidaamkan maanta ina hor taagan waa inuu ku noqdaa sida kaynta waa inuu ku noqdaa baan leeyahay arrinta labaad ee ma daaran yahay afurkani waxa weeye xoojinta walaaltinimadeena walaaltinimadu waa tiirka asaas u ah runtii bulsho xoogan marka laga hadlayo oo waa tii hore loo yiri laba isjecel waa labo is ilaalisa marka waxaan leeyahay nidaamkani wuxuu ku tarax tagay ummadda inuu hal dabaaleysto war saddexdeenu hayslaashano arrinta saddexaad uu daaran yahay afurwadareedkii waxa weeye xoojinta wada shaqaynta marka laga hadlayo waxa qurux badan inaa wax laga barto nidaamka wada shaqaynta ee quraanjada nidaamkeega wada shaqaynta soo lama garanayo wuxuu gaaray quraanjada waxa la yiraahdaa waa makhluuq yar oo lahayn awood weyn laakiin wuxuu ku suntan yahay nidaamka wada shaqaynta uu leeyahay mahmaa caano maxay Soomaalidu tiraahdo quraanjo ururtay mulacway way riixdaa marka waxa leeyahay runtii waxa leeyahay nidaamka wada shaqaynta ee maxay ahayd quraanjada waxaynu ka barano nidaamkaasi wuxuu u saamaxay quraanjada inay dhisto maxay ahayd guriyo waaweyn inay xambaarto
cunno ka weyn jidhkayga iyo runtii inay habayso nolol maalmeedkayga si quruxsan oo waxaa la idhaahdaa quraanjada nidaamka shaqaynteeda markaa laga hadlaayo quraanjadu waxay leedahay nidaam la isku halayn karo oo mid walba uu garanayo doorkiisa iyo shaqada uu leeyahay ka warrama dhalinyarteena dee aad waxay u daawadaan kubadaha Messi waa la wada garanayaa maan malaynaya Messi waxa lagu ku caan baxay attacker soo maaha dee kaale guardian qabada laga yiraahdo maanta muu qaban doorkiisa muu yahay defenseur bulqaadi laga yiraahdo doorkiisa muu yahay waa maya haddaba quraanjaduna mid walba waxay garanaysaa doorka iyo meeshay ka ciyaarayso shaqada ayay garanaysaa marka waxaan leeyahay ya quraanjadu waxay garanaysaa mid kasta waxay garanaysaa ta cuntada raadinaysa way garanaysaa ta cuntada xambaaraysa way garanaysaa ta maxay ahayd boqorada difaacaysa waa la garanayaa ta guriga dhisaysa waa la garanayaa marka waxaan leeyahay quraanjadu waxay fahantay inay badbaadinteedu ku jirto wada shaqaynta aniguna waxaan ku darsan sirta badbaadinta dalkeena sirta badbaadinta dadkeena sirta badbaadinta isbaahaysigeena wuxuu ku jiraa xoojinta wadajirkeena wuxuu ku jiraa xoojinta walaaltinimadeena iyo wuxuu ku jiraa xoojinta wada shaqaynteena marka diyaar ha loo ahaado wada shaqayn sida ay soo sheegeen gudoomiye aadan maxamed cabdu iyo walaalkay jaamac xuseen xoogayaha guud ee xisbiga MLD hawshu imika bay bilaabantay labadii bilood ee soo socdaalka ku soo jirnay waxay ahayd ibafur haddaan bilownayba marka waxaan leenahay walaalahaygiyo heegan hal ahaado diyaar soo lama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته